bismillaahi raxmaani raxiim. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. duur wanaagsan meel kastoo joogtaan. waa duurnimo jimco ah 27 bisha sebtembar sanadka 2024. kusoo dhawaada barnaamijka duurnimo hadaha oo kale aad kala socotaan bartaydan youtube ee iimaan jaamac. qodobada barnaamijka duurnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Tel Aviv oo dhinac kasta laga soo weeraray, Xuutiyiinta, dhaqdhaqaaqa Ciraaq iyo Xisbullah oo dhinacadana weerar xoogan tan iyo saaka ka wada gudaha Israel. maxaa ka dhacay Israel? gantaalka balastiga ee Xuutiyiinta ay ku rideen Tel Avivna khasaare intii laga geystay. macluumaad dheeraada iyo faahfaahin ayaad ka maqli doontaan intaanu barnaamijka ku jirno. duqeymaha Israel ay ka wada Lubnaanna way sii socdaan, iyadoo Xisbullahna ay xaqiijisay geerida madaxii ciidamada cirka ee maamulayay diyaaradaha duuliyaha lahayn oo ka mid ah hubka ugu muhiimsan ee Xisbullah ay ku tiirsan tahay. wararkii ugu dambeeyay Suudaan ayaad maqli doontaan. Shiinahana wuxuu la kulmayaa caqabad kadib markii mid ka mid ah maraakiibtii ugu casirsanaa ee dhowaan uu soo saaray ee xambaarayay madaxyada nuclear-ka cillad aan faahfaahin laga soo bandhigin ay khasabtay inuu dego. macluumaad ayaa isna ka maqli doontaan iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka ee mar kale soo dhawaada. aan ku horreeyay Israel ayaa saacadii dambe xalay ilaa iyo saaka waxay ku jirtaa xaalad aan wanaagsaneyn kadib markii weerar dhinac walba ay la kulantay. gantaal plastiga oo la sheegay in laga soo tuuray Yemen ayaa ku dhacay meel aan ka fogeyn bartamaha Tel Aviv, iyadoo intuu gantaalkaas hawada kusoo jiray digniintii la bixiyay ay dhalisay in 18 Israailiyiin ay dhaawacmaan kadib markii isbuurteen. qaar ka mid ah ayaa dhaawacyadooda laga digayaa iyagoo kusii socday goobaha gabaadkana waxaa keentay inay isbuurtaan oo dusha iska maraan. taasina waxay keentay in qaarkood ay la kulmaan dhaawacyo culus, sida laga soo xigtay warbaahinta Israel. kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa dhinaceeda sheegay inay soo saari doonaan war-saxaafadeed muhiim ah kaasoo la filayo in ay kusoo bandhigi doonaan gantaalkii u adeegsadeen weerarkaas. intuu weerarkaas socday sidoo kale waxaa xirmay garoonka diyaaradaha Israel ee ugu weyn ee ku yaala Tel Aviv, taasi oo muujinaysay baaxadda weerarka. intuu gantaalka hawada ku jirayna waxaa la arkayay iyadoo calaamad gudan ay dhinac walba ka fuushay marka laga fiiriyo nidaamka ka diga khataraha magaalada Tel Aviv oo ah magaalada ugu muhiimsan ee Israel. weerarkan ayaa kusoo aadayay xilli shalay hogaamiyaha sare ee Xuutiyiinta Cabdimalik al-Xuuti uu ku dhawaaqay in nidaamyadooda gantaalada oo ku jiro gantaalka Falastiin 2 ay gacan ka geysan doonaan howlgalkooda wejiga shanaad ee hadda uu sheegay inay bilaabeen. waxay intaa ku dureen Israel qaadi doonaan taageeradooda ay siinayaan Gaza, Lubnaan iyo ururka Xisbullah oo dhammaantoodba la kulmaya duulaanada arxan-darrada ay ka imaanaya Israel. Xuutiyiinta oo ilaa hadda kuwa u gacan sarreeya marka laga hadlayo Tel Aviv iyo weerarada ka dhaca ayaa waxaa kusoo biiray dhaqdhaqaaqa Ciraaq. dhaqdhaqaaqa Ciraaq oo ah isbahaysi ay ku midaysan yihiin ilaa iyo 3 urur oo ay ku jiraan Xisbullah ayaa dhinacooda waxay sheegteen inay weerar ka geysteen bartamaha Tel Aviv, halka ay tilmaameen in gantaalo ku weerareen. balse weerarkan dambe Israel ayaa diiday oo sheegaysa inaysan la socon wax weerar ama digniina oo ay nidaamyadooda ka heleen ama wax weerar oo ku dhacay Tel Aviv. balse war-saxaafadeed ay soo saareen dhaqdhaqaaqa Ciraaq oo ah ururo isku biiray oo ay taageerto Iiraan ayaa sheegaya in ay dhowr weerar ka geysteen gudaha Israel oo ku jiro sida ay sheegeen weerar ay ku qaadeen Tel Aviv. waxaa kaloo xigay weeraro ay ka geysteen magaalada Haifa, halka iyadan laga soo sheegay ilaa 6 qof inay ku dhaawacmeen sida ay soo bandhigtay warbaahinta Israel Times oo mid ka mid ah geesida ugu weyn ee Israel ayaana sheegay khasaaraha ka dhacay Haifa kadib markii halka gantaalada diyaaradaha duuliyaha lahayn ay ku dhaceen. dhaqdhaqaaqa Ciraaq oo dhinacooda sare u qaaday tan iyo bishii Abriil ee sanadkan weerarada ay ka geysanayeen gudaha Israel ayaa sheegay in weeraradooda ay u adeegsadeen gantaallo iyo diyaaradaha duuliyaha lahayn, kuwaas oo ay tilmaameen inay ka dhaceen aagaga buuraha Golan, Tel Aviv iyo Haifa. sidaa ku maqasheen barnaamijkeena habeenimo ee xalay, Israel ayaa sheegatay inay duqeyn ka dhacday Beirut duleedkeeda ay ku dishay mid ka mid ah saraakiisha ugu muhiimsanaa ee Xisbullah, kaasoo ahaa taliyihii haystay ciidamada cirka gaar ahaan maamulayay nidaamka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka mid ah nidaamyada ugu muhiimsan ee Xisbullah weerarada ku geysato. hadda ururka Xisbullah ayaa war-saxaafad rasmi ah soo saaray wuxuu ku xaqiijiyay geerida Maxamed Xuseen Saruur oo ahaa madaxii ciidamada cirka ee Xisbullah, isagoona si gaar ah u maamulayay nidaamka diyaaradaha duuliyaha lahayn oo ka mid ah nidaamyada weerar ee ugu muhiimsan ee Xisbullah. tan ayaa sare u qaadaysa khasaaraha dhinaca Xisbullah ay kala kulmaysa Israel ee lagu beegsanayo saraakiishooda sare. ugu yaraan 5 askari oo Suuriyaan ah ayaa lagu dilay weerar Israel la beegsatay goob ciidan oo ku taala xadka Syria iyo Lebanon saacadii hore ee Jimcadii saaka, sida ay sheegtay wakaalada wararka Syria ee Sana. Israel ayaa hadda sare u qaaday dhaqdhaqaaqyada ka wado dhinaca xadka Lebanon iyo Syria. tani waxaa lala xiriirinayaa sida laga soo xigtay warbaahinta Israel inay halkaa ka jiraan dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo wadaan dagaalyahanno hor leh oo la sheegay inay ka kala yimaadeen Yemen, Ciraaq iyo Syria iyo gobollo kale oo ka tirsan bariga dhexe. in ka badan 40,000 oo ciidan ah ayay Israel sheegtay oo dagaalyahanna inay ku sugan yihiin aagaga buuraha Golan iyo xadka u dhaxeeya Lebanon iyo Syria.
kuwaasoo ay suuragal tahay xil walba inay ku biiraan iska horimaad toose haddii uu dhex maro xisbullah iyo israel waxay dhankeeda sii wadaa duulaanka arxandarada ay ka geysanayso lubnaan, iyadoo gobollo kala duwan iyo deegaano kala duwan oo ka tirsan waqooyiga bariga iyo koonfurta lubnaanna ay tan saaka ka dhacayeen duqeymo kala duwan. waxaa sare maray barakaca iyo dadka ka baxaya lubnaan iyagoo ka fogaanaya duulaanka israel halkaa ka wado. dhinaca kalena waxaa natiijo oo muuqanaya aan laga gaarin dadaaladii lagu raadinaya xabad joojin ka dhacda lubnaan, balse waxaa hadda soo baxaya wejigaba xorla oo Mareykanka iyo Faransiisko ay kala kulmayaan Israel kadib markii afhayeenka golaha amniga aqalka cad ee John Kirby uu hadda sheegayo inay la kulmayaan waxaan wanaagsaneyn kadib markii uu sheegay in dhowaan warmartiyeedkii soo baxay ee dalal dhowr ah ay saxiixeen oo ay hogaaminayeen Mareykanka iyo Faransiiska oo ku baaqaya xabad joojin 21 maalin oo dhex marta Israel iyo Hezbollah inuu ahaa mid qodob kasta oo kamid ah Israel la wargeliyo ka hor intaan la shaacin, balse Israel ay dhabarka u jeedisay. Netanyahu wuxuu sheegayaa in aysan Israel diyaar u ahayn heshiis la gasho Hezbollah. sarkaalkan aqalka cad ayaa sheegay in qorshaha xabad joojinta ee Mareykanka iyo Faransiiska ay soo bandhigeen oo ahaa mid ay iska kaashadeen Netanyahu oo ay wargeliyeen qodob kasta oo kamid ah, taasoo keentay baa la yiri in ay rumaystaan in Israel ay si buuxda u taageeri doonto. sarkaal Faransiis ayaa sidoo kale laga soo xigtay in soo jeedintan lagu raadinayay heshiis xabad joojin oo ahaa mid Netanyahu lala kaashaday. Mareykanka ayaa hadda la sheegaya inuu aad uga carooday talaabada uu Netanyahu qaaday kadib markii la shaaciyay soo jeedintan oo dalal dhowr oo reer galbeed ah iyo dhowr dal oo Carabeed oo ay ku jiraan Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadku ay ku siixnaayeen, kaasoo ku baaqayeen xabad joojin degdeg ah la gaaro si xal loogu helo khilaafka Israel iyo Hezbollah. balse Mareykanku hadda wuxuu arkayaa in mar kale wajigabax weyn uu la kulmayo kadib markii Israel oo la sheegay qodob kasta oo kamid ah soo jeedinta in lagala tashaday gaar ahaan Netanyahu inuu ka warhayay in markii la shaaciyay hadda Israel ay dhabarku jeedisay. Netanyahu ayaa cadaadis weyn kala kulmaya dhinacyada midigta fog ee gacanta ku haya oo isbahaysiga ugu weyn ee hadda taageersan Netanyahu xukunka sii joogo, kuwaasoo diyaar u ahayn in wax heshiis lala galo Hezbollah. afhayeenka golaha amniga ee Mareykanka ayaa hadalka uu jeediyay waxa uu sheegay waxaan haysanay sabab kasta oo aan ku aamino in diyaarinta iyo bixinta soo jeedintan ay tahay mid si buuxda loo wargeliyay oo qodob kasta oo kamid ah ama erey kasta oo ku jira ay ka warhayeen Israel. maana yeeli lahayn haddii aan aaminsanaan lahayn inaysan aqbali doonin. tani waxay u muuqataa mar kale oo nidaamka Biden uu wajigabax weyn kala kulmayo dhinaca Israel kadib markii sidan oo kale bishii May uu Biden shir jiraad ku qabtay aqalka cad isagoo kalsooni badan ka qabay dhinaca Israel, sheegayana in uu Israel kala soo tashaday hadal uu markaa jeediyay. markaa wuxuu soo bandhigay soo jeedin 3 waji lahayd oo lagu joojin karay dagaalka Gaza, balse markii uu dhamaaday shirka jiraad Israel ayaa iska diiday inay ka warhayso soo jeedinta waxayna qaadaceen qodob kasta oo kamid ah, taasi oo keentay inuu hadda dagaalka Gaza uu sii socdo isagoo sanad sii galaya. dhinaca Suudaan dhawaaqa rasaas toosa iyo qaraxyo waaweyn ayaa tan iyo saaka laga maqlayay bartamaha magaalada caasimadda ee Khartoum. tani waxay ka dambeysay markii duulaan ballaaran ee ciidanka militariga Suudaan ay ku qaadeen magaalada caasimadda ee Khartoum. duqeymo dhinaca cirka ah ee ciidamada militariga Suudaan ku qaraacayaan Khartoum oo caasimadda Suudaan tan iyo shalay, iyagoo sheegay duulaan ay muddo dheer diyaarinayeen inay hadda ku qaadeen Khartoum oo ay ku doonayaan inay mar kale gacantooda soo gasho. magaalada caasimadda ee Khartoum ayaa waxaa gacanta ku haya kooxda ka soo horjeeda militariga ee RSF. hadda warbixinada u dambeeyay oo soo baxay ayaa sheegaya in saaka ay saldhigyo ay ku lahaayeen RSF gudaha magaalada caasimadda ee Khartoum inay dab ka kacayeen. iska horimaadyo ayaana qaybo kamid ah magaalada lagu maqlayay oo loo adeegsanayo hubka culus iyo qoryaha darandooriga oo dhaca. xasilooni aan caga badan ku taagnayn ayaa hadda la sheegay inay ka jirto gudaha magaalada Khartoum kadib duulaanka weyn ee la sheegay in militariga Suudaan ay ku qaadeen Khartoum. weerarada cusub ayaa waxaa ka dhashay barakac. inkastoo awalba aysan dad sidaa u badan ku sugnayn Khartoum, haddana waxay arkayaan dadka ku haray in ay la kulmi karaan weeraro waaweyn xilli militariga Suudaan ay sare u qaadeen duqeymaha ka geysanayaan Khartoum. xaaladda Suudaan ayaa laga digayaa iyadoo hadda militariga Suudaan ee hogaamiyo General Burhan ay wacad ku marayaan inay doonayaan in ay guud ahaan dalka gacanta ku dhigaan kana saaraan dhaqaaqa RSF. dagaalka Suudaan ee soo bilaabmay sanadkii hore ayaana sabab u noqday burbur weyn oo dalkii Suudaan gaaray, kaasoo sidoo kalena ay ka dhasheen barakac, macaluul iyo xadgudubyo waaweyn oo dhinacyadu ay ku kaceen. Suudaan ayaa hadda noqotay goob meel kasta uu dagaalku gaaray burbur xoog leh oo waqti ay ku qaadanayso dadka reer Suudaanna waxay kala kulmeen dagaalkan labada jiranaal u dhaxeeya. xiisadda Suudaan waxaa la sheegayaa in baasiinka ay ku bilbilayaan dhinacyo shisheeye oo faragelin muuqata ku haya
suudaan. ugu dambeyntiina markabkii ugu cusbaa ee hubka nukleerka ee shiinaha ayaa degay horaantii sanadkan. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa laga soo xigtay. tani waxaa la sheegay inay wajagabax ku noqon karto Beijing iyadoo ay doonayso inay ballaariso awoodooda military gaar ahaan nukleerka. shiinaha ayaa horey u lahaa ciidamada badda ugu weyn adduunka, waxayna leeyihiin in ka badan 370 markab. waxayna bilaabeen dhowaan inay soo saaraan maraakiib cusub oo nooca qaada nukleerka oo qaarkood ah kuwa quusa. hadda waxaa la sheegayaa in intii u dhaxaysay bilihii May iyo June ee sanadkan inuu degay mid ka mid ah maraakiibta ugu casrisanaa ee shiinuhu lahaa ee qaada nukleerka gaar ahaan kuwa quusa. cilad aan macluumaad laga soo bandhigin ayaa la sheegay markabkan inay qabsatay, kaas oo awoodi kari waayay inuu biyaha ka soo baxo. macadda haddii markabkan uu markuu degayay ay saarnaayeen bombooyin nukleeriyan kale. wargeyska Wall Street Journal oo xiganaya sawirro dayax gacmeed oo Maraykanku qaaday iyo saraakiisha Maraykanka xogta ay ka hayaan markabkaas ayaa sidoo kale la xiriiray saraakiisha Shiinaha. afhayeen u hadlay safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa dhinaciisa sheegay inaysan hayn macluumaad badan oo ay ka bixin karaan dhacdadaas. waxa uu kale uu sheegay inaysan war u hayn haddii markabkaasi ay saarnaayeen xilligii uu degayay bombooyin nukleer ah. tani waxay noqonaysaa xaalad weyn oo saameyn ku yeelanaysa dadaalada uu Shiinaha doonayay inuu ku horumariyo nidaamkiisa nukleerka. barnaamijkii duurnimada intaas noogu eeg hadduu eebedmayntan barnaamijka xiga habeenimo ku kulmi doono. wararka iyo warbixinada isla xilliga dhacayaan waxaad kala socon kartaa barahiga Facebook iyo Telegram oo ku heli kadib Iimaan Jaamac.